salaamullaahi calaykum daawadayaal halkaad nagala socotaan waa wargal media. Wararkaan idiin hayna waxaa ka mid ah dalka Britain waxaa maanta ku geeriyooday abwaan Axmed Ismaaciil Xudaydi oo da'diisu ahayd 92 sano asagoo ahaa abwaan Soomaalida kaalin muhiim ah kaga jiray oo aad loo jeclaa. Allaha u naxariistee. waxaa la sheegay in cudurka adduunka qarribaya ee COVID-19 loogu magac bixiyay. dalka Djibouti waxaa la sheegayaa dadka cudurka COVID-19 uu asiibay in ay gaarayaan ilaa 150 qof. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo barteeda Twitter-ka ku sheegtay in qofkii 8aad laga helay cudurka COVID-19 qofkaas oo la sheegay in uusan dibadda ka imaanin oo uu dalka ku sugnaa. iyo Kenya oo gubtay qaad la soo gelin rabay gudaha dalka Soomaaliya. Imaaraadka Carabtana waxa uu gaarsiiyay maanta kaalmo maamul goboleedka Puntland iyo Somaliland taas oo aan lala socodsiinin dowladda federaalka Soomaaliya. dulmiga lagu hayo dadka dega gobolada Jubbooyinka oo sii kordhaya kaas oo uu qayb ka yahay maamulka Kismaayo ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo sheegtay in sanad dugsiyeedkan aan imtixaan la qaadi karin ardaydana loo qiimeyn doono dhibcihii teeramka ay ka heleen. ku mahadsanid daawashada barnaamijyadeena iyo wararkaan halkaan soo gelino. fadlan subscribe saar muuqaalka gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin wararka iyo barnaamijyada kale ee halkaan soo gelino. share garee si uu asxaabtaada u gaaro muuqaalka. haatana warkii oo dhammaystiran. warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Axmed Madoobe xidig iyo seeraar oo isku beel ah ay ku heshiiyeen in maamulka Jubbaland ay isku koobaan qaataana madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba. Axmed Madoobe oo looga bartay iska ilaalinta dadka deegaanka u ahooyinka taasoo sii kala fogeyn karto beelaha walaalaha ah ee wada dega Jubbooyinka iyo Gado.